toddobaadkan waxaan idinku hayaa arrin aad iyo aad uga duwan arrimaha inta badan aynu ku soo qaadno barnaamijkeenan Hareer iyo Hargeysa. abwaan Soomaaliyeed ayaa waa hore waxa laga hayay dayaxa la kala boobaya iyo dirirkii cawlada isagoo markaasi canaananayay nolosha ay Soomaalidu ku jireen iyo heerka ilbaxnimada ay ka taagnaayeen iyo adduunyada kale meelaha ay hiigsanayaan. haddii haddaba abwaanku waagaasi sidaasi lahaa iyadoo la oran karayo bariga barata weyniba kamuu taagnayn hawada sare ee caalamkan aynu ku noolahay. imika kumanaan qof ayaa la sheegayaa inay saf ugu jiraan ama araaji ay u qorteen in ay ku noolaadaan oo ay tagaan meelaha loo yaqaano Mars. saaxiibkii Axmed Xasan Cawke ayaa arrintaasi si weyn ula socday oo iiga warramay. waxa qabaqabanaya company la yiraahdo Mars One oo wadanka Netherlands ama Dutchka ama Holland sida Soomaalidu inta badan ay taqaano waxana la leeyahay waa in si dhaqso ah araajidaas dadku ay u soo xareeyaan oo shuruudahaas ku xidhan dad ilaa imika soo xareeyay ma jiraan kumanaan ayaa jira bilaahi amarkii Cabdisalaam oo kuyuubaaba loogu jira marka waxa weeye waqti hada inta loo soconayo ma taqaan waatay safarku min dheer yahay moosa waa 8 bilood oo kaliya si soconas 8 bilood waatay oo imika hadii laga qayliyo marka Axmedow diyaaradda marka la tagayo Yurub oo kale halkan laga tagay Hargeysa oo kale 8 saacadood marka la dadka qaar baa la yaaba 8 bilood baa la sii soconaya 8 bilood ayaa la sii soconaya marka waxani waa un horta dhawaan 2018 mid baa tagaya way soo noqonayaan kan ma taqaana waxa weeyaan meesha maro muuqaal waa maqli jirtay tigidku waa kow waa dhinac kale waa socod soo noqosho male dadkani waana shuruud marka wayna xagga degto waxa weeyaan waxaan looga jeedaaba in meesha la dego waayo waxa weeye waxa la ogaaday berigii hore horta Ilaahay dhulkan uu abuuray waqti ahaydba dhulkan aynu ku noolahay meerahan iyo Mariikh bishaasi xiddigtaasi Mars inay isku cimilo ahaayeen oo ay biyo lahaayeen wax walba laakiin malaayiin sano kadib oo wax isbedbedeleen haddana ay yara kala baydeen laakiin aad bay isugu dhow yihiin baa leeyahay marka dadka tagaya hadda saaxiibay si qaadanay horta way buuxsanaysa 8 bilood baad shafasa saad u socotid ayaa tagaysaa qofku waa inuu wax qabsada guriga dhistaa waa inuu biyo helaa waa inuu wax beertaa inta waxa soo saaray haydan hore ayaa markaas uu sii cunay wax li haday taasi ka goodan waxay noqonaysaa baa leeydi inuu qolada kale ka daba tagi doonta 2 sanadood iyo bar kadib marka 2 sanadoodba mar baa la baxaya 2 sanadoodba mar baa la baxaya marka waxa weeyaan dadkan adduunkuna waa sootan dunida dacaladeedaba la tagi la barigoorna la isma aqoon dunidana aynu ku noolahay waa soo qaado meel kasta Mareykankan iyo dhulkan la degay dadku ma aqoon dad baa sadegana saasoo kala imika loo tagay tii baa la yara kordhinaya badla tii baa la yara kordhinaya Mars meel la yiraahdo ayaa la tagaya way Axmedow hadii su'aal kale aan ku weydiiyo dadkan marka tagaya wax shuruudo ku xidhan ma jiraan mise qofku intuu inacu kiyadayna hirriba inta tagaan isqorayo deedna waa la qaadaya horta inaga markiiba la qaadi lahaa way shuruudaha ku xidhan ma tahan waa inuu adkaysi bataa waa inuu qofku adkaysi bataa waa inuu adkaysi bataa jawi kasta oo qofkaas wax ku qabsan karaa oo ku geli karaa oo aanu ka ooyinde waa inuu dad la shaqayn leeyahay dabac wanaagsan oo moogta siyaasad waa sifeeniba la sheegaya wax tar waa inuu noqdaa wa shuruudaha ku xidhan hadayna sida ahayn kullu caafimaadna wala seeraba ila dadku deeskaashatay noqonayaan of course marka waxa weeyaan dadka halka joogana marka aad u tagtid waa inaad si fiican u la dhaqantaa وين الله يسوع عبرنا الله ركي مارس وحلت تجي وحي نوبي بسم الله الرحمن الرحيم هاي موقتي ان وإلا تضبي إلا 8 بلود انتو سعونيا ان باكا قادية هدي سايدو اي كاق قوضا أحمدو واحد تري 2 سنوات كدب بقى قلادة كلا صوبح يا مركا ما ييغا وحوغا يدي سو قادية وحوغا با لو سالوني وركوي لا والله حديد يا مركا سايدي waa lagu keenay lagsabariga dambe uma baranaysid hadii kala waxaan noqonaysaa in caayda la qaatay lacagta lagu siiyay adigoo shaqaysaneen iska gelis bashirta xaqa caaydi qofku ma soo noqonayo waliba waxa la hadalaya Cabdisalaam Xuseen demeerayaashan ku meersan waxa laga yaabaa qaar kood inay yiraahdo 5 sano halka sanada
waxa laga yaabaa kaasi inuu 10 sano noqdo ama 20 sano oo adoo 5 sano jiray kii dhashay oo 100 jir aad u timaado aad halkan ugu soo noqotay 5 sano kuma soo noqonaysid waa tijaabo laakiin axmedow maadaama la leeyahay 2018 safarkii ugu horeeyay baa baxaya oo dad qaadaya oo maaris tagaya oo soo noqonaya qoladan iyaga maxaa meesha loogu soo xidhaya waxa loogu soo xidhaya waa inay u noqdaan tusaale dadka haddii tanto la soo noqdo meeshii la degmay moogti iyagu joogan waxa kaaga daran tababar xooga hota la siisay iskama dirayoon oo sidee markaa oo de markaa sida wax loo beerto adkaysiga biyaha sida loo helo waxa la barayaa oo kale guryaha sida loo dhisto recycling waxa la yiraahdo ee sida Yurub ama Mareykanka biyaha qubin waa dib u isticmaashado de moogta inta dawiye balaaya lagu daro way korontadana cadceedda laga dhalinaya soo qoraxdii meel walba ma joogto oo waa solar system laakiin sheekadaan sii arkay matqal Cabdisalaam ibka Soomaad maqal ama adigoo de London jooga lagu oranaya kii yaraaba soo baxay oo Liibiya wuu soo dhaafay Greego soo galay bal Cabdisalaam oo ka warda waxa la lahaa dhexdaas la isku dilay waxa iman doonto matqan eedo gabadhii wiilkii waan soo diro waxa la yiri dayaxa ilaahay uu soo dhaafiyay oo de immigration koodi dhinac ka maray waxaan malnaa inay dad muslimiin ku waasiyihiin laakiin saxidkii Neptune ayaa la sheegay in adagtoon la dhaafi karin inta ka warhay sidii ay Mars u yimaadeen Greegan ka waatay marka dambe la soo noqdana maxaa suurtagal noqon kara marka makhaayada la fadhiyo magaalada kale markaas loo sameeyay ka maartay يركب طبعا فينلاند بكي ما هي wax ka sokayad boodisa koob iyo 10 bilood uu soo socdo Mars winter base kan dunidani wana in fact wax dhacaya waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maskaxdayru halkan noo gali ayaa aqoontan oo dhan damiyay bini aadamkii hore awooyaasheen diimka la soo nooleeyo markaysan u eegan korontada telefoonka baabuurtan diyaaradahan wax ajiiba Soomaa sanu baa loo gaaraya ina way sidee dadka loo kala saaraya marka dadkan kumanaanka ah ee imika araajidooda soo gudbistay taxan ba laga qaaday way taxankii laga qaaday huwa muslim immigration ko laga sheegay mise hebel baan ahay waxa weeyaan inay ka go'naato qofkii tababar la mariyo la eego akhlaaqdiisa 6 bilood marka meel lagu hayo la arko habeen walba midna disaysan wanaga habeen lagu leeyahay wareerina marka waa taasay galata waxa la sheegaya warbixinaha qaar ay sheegeen Axmed in telefishinada laga soo saari doono min marka dadka la xulayo ilaa markay tagayaan yes waxa weey marka arjiga laga qabto imtixaankeeda lagu marinayo maxaad ka doonaysaa inuu sideeyaba tahay maxaad isleedahay meesha u jira halka laga bilaabo arjiga diibtid ilaa iyo u tagayo qofku waa live coverage wuxuu soconaya toos baa loo daawanaya ama marka la dhaafaya ayaan dhameystiri safari baanu daawanaynay iyo barnaamijyo Australia laga soo duubay markaas wali marka la faanay war balaanagoo dayaxa barbar marno waxana darag ya mishiinkii iyo raxmado markaas aan dayaxa bay nadaji Allah marka deesada la isugu faanay marka waxaan waa wax iman kara aan waxaan soo taagnaa Cabdisalaam يعني oo warbixintana ku jira aniga ganaan soo gaaday markii dayaxa qofkii ugu horeeyay Neil Armstrong uu ku degay waxa 1969 secondary-gan ku jiray dugsiga sarade amuud banjo markaas la yiri qof bidaaadana ku degay yuli gaadhay orbit kay marayaan iyo xas macna ma lahayn Neil Armstrong baa ku degay dadkeenii bal aqoontii diintana waa lagu kala horeeyay marka aqoon diinoodo aad weyn dalku waxa la isku qabsaday dayaxa lama tay karayo waa la tay kara waan xasuustaa oo safaaradda Mareykanka ee Muqdisho markaas joogtay ayaa waxay soo qaadeen film beriga waxa soo baxay isaguna oo star noqday xidig ninkii heesaagii caanka ee James Brown oo heesiisu bismillaahir rahmaanir rahiim iid loo haystay iidi yanus labadaas soo barbar dhigaan isagoo ku degayo Neil Armstrong iyo James Brown oo moogtay like sex mission tuu qaadi jiray marka labada wal noo dhigay laan roobal baasida markaas bahalkii la taagi jiray ma jirin waxaan
markaasaanu daawanay markaasaa James Brown noogu tuuray markaasaanu iska rumaysanay marka imika caaway leenahay هاي Allah inagas أحمد حسن عوكي أدي أدبض thank you مهاتسنت very much Abdulsalam